maalinka qiyaamahana banka qiyaamo marka la yimaado ee bani aadanka cadaalada sida loo dulkeena madaxooda ee qof walba dhididka asaga jirkiisa ka baxay uu dhulka intuu galo dib u soo noqdo ee qof walba dambigiisu intuu ahaa dhididkiisu yimaado qaar baa nabigu sheegay dhididkoogu wuxuu iman doonaa kuraamaha qaar buu iman doonaa maaragtaane jilbaha qaar buu iman doonaa maaragtaane halka gunti qabadka dhixirka halka mardhaxda qaar buu iman doonaa halka maaragtaane garbaha qaar buu iman doonaa buu nabigu yiri halka qowlalada wa minhum man yuljimuhum al'araqu iljama halkaasuu iman doonaa dhididka qof walba isaga ka dhacay ayaa inta dambigiisu ahaa ayaa soo gaari doonaa yani waa bad adiga ku gaaro cid kale kula qabin adcaada halka inaga gubaysa bani aadanka saa loo duldhigi doonaa madaxooga وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا بإلهين يموج ساسا الله سكون نحسو عندنا خلقك إلهي أبو ريونا مركاسي أورندونا ضدك أورندونا لبعتدا ما أنت أن كجرنا أيها نجا ساري كره بس كي إلهي أدو ونتجنايو ربك نوجا إرجية markaas la oran doona aadam calayhi salaam aabaheeni aadam en ka farcamnay oo basharka oo dhan aabba u ah oo nabigi ugu horeeyay bani aadamkan asagu ahaa ilaa nabi aadam nabi buu ahaa kaaba loo imanaya marka aadam calayhi salaam oo la oran doona ishfa' lana rabbaka rabbiga nooga ergey maanta noo shafaaca dalab waad u jeedaa dhibaatada aan ku jirno meel aan u dhaqaaqayna ma garanayno waa la qaawan yahay oo la qatan yahay adcaada halka inaga gubaysa madaxa bini'aadanka saa loo dulkeenay bal hal saaca maanta adcaada dhex joogso ma karaysid maxaad u malaynaysaa 50,000 oo sannadood baa banka qiyaamo la taagnaanay markaa buu nabi aadam leeyahay oo jannada dhanba ma kaga soo baxdeen ilaa gafkaygii mooyaane jannada جنة آدم عليه السلام مركي الله أبو رجنا إلى هيجلي جنة دي محال كذا صوب بعدين وقف كيجي أنا وانقف في بولي وان دم بانقلي دم بقاسمحوها فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين جنة داس واتاس كل حياة بإلهي كيري ماشى دونتان كمرة واحد دونتان كدحونا لكن جيتكاس ودواننا بإلهي جيتكاس هذا جيتكا ودواتان ظالمين تتكمل نقول إنسان بالويري آدم عليه السلام جيت كيف عنا صدوق عنا جيتكا الليلو إبليس عليه اللعنة ومركه هرب كل دارت آدم يدور يدي سينو جنة كدارين دونه وطريقة حقنا وكدارين دونه أيا ما ركتانا يري يا آدم geedka lagu diiday cunidiisa ma taqaana fawaayida ku jirta ma garanayno sagay xawaa wuxuu leeyahay hadaad geedka cuni lahaydeen ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama waligiin iyo allihiin jannadaad ku wari lahaydeen bal wili walabada sifaa binaadamku mulki buu jecel yahay mulki daa'ima nolol daa'ima raaxad daa'ima barwaaqo joogta ah taana jannada un bay taala ifka ma taala لأن الشيطان كيف مركا ميشن تاغن ونبي آدم جيت كي مركو عنيبا جنة لغا سو ساري يوم الجمعة لغا سو ساري بعد صلاة العصر جمعة الله أبوري جمعة جنة لقليي جمعة جنة لغا سو ساري جمعة ساعة قيامة ودعي دونتا مالنت جمعة ساعة الإجابة كجرتو دعاء الله أقبل آيا كدح جرتا يوم الجمعة النبي آدم الله أبوري بعد العصر maalin jumca jannada la geliyay maalin jumcana jannada waa laga soo saaray nabi aadam gafka jannada looga soo saarayna waa gafkee buu ahaa waa geedkaas uu cunay bas halka aan ka fahmnay leeyin culimadu laga fahmaa mar kasto bini aadanku ay dambi ay ku dhacaan ilaahay raxmadiisa ka sii dheeraanayaan mar kasto taaca iyo khayr alla timaadana ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa iyo ridihiisa baad u sii dhawaatay آدم عليه السلام وحوله جنة دنبا دنبغيغي أنو أنقلبت كغسو بحدين أرضو أوتك غير كي نوح بالله إيمان عليه السلام نبي نوح وحوله يهي إساقنا وارون
أنا الرسول الله أقوه الرئيي لكن دعادي دي إلى أقبلي وأنا جاء دونك كسو استعمال ومضى يدكوها باريان لي رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا رب إني مغلوب فانتصر وأنا جاء ما دام دعادي كلي إلى أقبلي أدونك أنا وأنا مضى يدكوها باري كدعادي سلا أقبلي ما أنت أنا جماعة شفاعتنا أنا مليه بوليه اذهبوا إلى غيري إلى إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم بالله إيمان نبي إبراهيم مركي الله يمادل إلى خليل كإلهي بعطاه صاحب كإلهي ما شفع عقاد وعلي صدح بيننا الدوية الدوشة دكوس وشيء أيال ما تكبقى يا إلا وقف تبوليه ده بسبين صدح كليه إنك ما أنت بسبين بينك دعنا والنلاش شيء أردم بكرة نبي إبراهيم صدح بين بالله يا يقدعله صدح ذي بان كبقى يا مانتين لا يقول عقاب والله يقول قبته صدح ذبين سديك لا هايان بنتك وبعد وحي هيد ما لنتو نبي إبراهيم أوضى مع سنة أصنامتنا يعبد يالينو كججبيو اللي يدي وعيد ومقالة عندك وهذا ما يسب برنامج وقصوا بح أقل ما لنتي اللي يدي أيه ولي بعيد الله دري أقل ذول اللي ضدك كسر صار بقر كبا وضدونا يه أسكرتي مركي النبي إبراهيم وهي معدين وحيري أنا مسعون كريوان حنوسان هيبو كيودي فقال إني سقيم أنا وان بكابودي وأجرنا رنتي أجرنا محو كجرنا دتكن قال لماذا كل منايا دغح غعنتودا ay ku sameeyeen caabudaya baahidooda u sheeganaya waa wax laga xanuunsado weeyaan inaka taariku salaagu muna xanuujiya ya meel kasta macsiba ka dhacaysa kama damqanayn ibraahim alayhi salaam dadkan gaalnimada ku nool buu ka damqanayo ee shirkiga ku jira laana shirkigu waa dulmi la galo ka ugu weyn luqmaan al-hakim inagii samcu ku yiri يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلهي غيرك أولا بريا إلهي غيرك أولا تلسارتا إلهي غيرك أولا قبقا إلهي غيرك أولا رجيا إلهي غيرك أو مارك تاني باهيد الله شيكتا وشرك إن الشرك لظلم عظيم ما دام قريات سميستين دقح قعنتين أتكو سميستين أتباهيدين أو شيكا نيسان وشرك ويان إلهي وضو شريك يشين إلهي لو ما شريك يلو إلهي كليجي إلا بريوم متيستي بس تاسع مركا النبي إبراهيم حنوجني سيسقى إنك أنا ما أنت أقل ذيني أصحاب ذيني قرابة ذيني أهل ذيني ما قبل الصلاة ما قا أسعو تسدي إلهي وسر لك يا حين يا كدم غنى يا مات مد ولالك يا هذو جرين حنوسين هي وهذو دم غنى مركا ودختر كاتجين هذو جاجون أيو مركب عنا سين هذا الرجال سيد بكون عادي دبعت هذا وادو قدم قن لكن صلاة الآن عندك قدم قن السمانة ويرته دبت أقوين ما أنت وما تقول عدا وامحي أكتر نبى نقصان دين ده يتالله وضت هي الذي مالين بمالين تقدم بس إلهي كفوا جانا يان كم مرجونا كم قدم قن نبي الله إبراهيم عليه السلام وحير إني السقيم أنا وجرنا هيبوري بيني واتاس kolkay ka tageen waa ka asnaamtii uu qabto uu jajibiyay kii weynaa buu reebay bas faaskii uu ku jajibiyayna kii weynaa buu qoorta u suray magaaladii markii lagu soo noqday meeshii macbadkii ay yimaadeen bay yiraahdeen ayaa alihadeen sida uu jajibiyo u galay waxay yiraahdeen magaalada qof kale kaga manu tagine yarkii raaya ibraahim baanu kaga tagnay keligii bas waliba ibraahim waxa lagu yaqaanay asnaamteena mar walba uu caay jiray إبراهيم عليه السلام أبيه آزر أيا أصنام تقعنتي سكو سميني جري بأنه أنتو أدي بأساق أو يربكو أورنجري أرادوا مقالة إنو يسوق قدقوا إنو إيبقي مرقابوا النبي إبراهيم أنتو حقا كقصوا حد حريق أما حقا أيو دولك جيدي جري مرقاسوا أورنجري من يشتري مني أيا أنيقا إيقا قدنا يا من لا ينفع ولا يضر مدان نبي داف منا أنا لهين كي نبا إيقا قدنا يبو أورنجري إلى النبي إبراهيم أبيه لقوا سود دعوة ولا يرادو يركع إلى هيدا ده النوجد دي بنو نجاف لقادين يا مالين والبيت عجيب والنبي يسقو ير هو يدي كوير هو أنا جاي الربيع يا أنا جاي برباريو وحسيو باهي ده ضبولا مركب كتر ده أنا جا مركب هو أدي أنا أياك الربيع باهي ده ضبولا
markaabay ku tiri aabbaha markaa waa hagaag aabbahayna isagana ayaa rabbi oo ka sarreeyo wax u soo dhiiba markaabay tiri namruud boqorkii markaa buu waa hagaaga namruudna isagana rabbigee ka sarreeyo wax u dhiiba markaabay dharbaaxa ku dhifatay ku tiri namruud rabbi ka sarreeya ma jire aamusiyaan lagu maqlinay ku tiri markaasuu yidhi hooyo may anu rabbi baan raadinaya rabbigii weynaa ee koonka iyo kaa'inaadka abuuray baan rabaa inaan garta buu yidhi ibraahim fitradii baa dhaqaaqaysa moogta fitra saliima ku jirta qalbigiisa fitrad lehe allah baa koonka ka taliya allah baa wax kuu siiya allah baa wax kaa qaadi kara dhibiya dheef ilaahay baa haya noloshiiyo dhimashada ilaahay baa haya ciz iyo dulli xagga alluu ka yimaadaa faqriga qina ilaahay baa keena xanuunka iyo caafimaadkana allah baa keena cid kale ma keento cid kale ma keento ibraahim calayhi salaam maadaama uu aalihadeenna yaraantiisii uu aflagaadayni jiray asaga keligiina magaalada uu ku hadhay asagaa jajabiya layidhah la soo qabto maxkamaddii baa la keenay maadaa sidaa u galay qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun buu yidhi in kaanuu yantiquun maadaa sidaa u jajabiya maya kaogii weynaa waa kan baad arkaysaa mufaaska qoorta ku sita isagaa cadhooday oo xanaaqoo yidhi aniga yaryarka sidee layla caabudaa harka isaga weydiiye buu yidhi beenta labaadina waa taas bal labada beenood horta eega ugu horraysa cajiib soo maa beenta saddexaad waxa weeyaan isaga iyo xaaskiisii oo bad doon saaran ayaa waxaa ka soo horbaxay nin boqora oo daalima oo gabdhaha maaragtaan intuu ragga ka qaato fara xumeeya markaasuu nebi ibraahim xaaskiisii ku yidhi haddaan idhaahdo waa xaaskaygii way iga kaa fara xumaynayaanoo way ku dhibayaane ragga waxaa inta badan lagu qadariyaa gabdhaha walaalahoode waa walaashay baan odhaniye adiguna waxaa tidhahdaa buu ku yidhi waa walaalkay dhabuu ka yidhi beenta saddexaadna waa taas walaalayna ahaayeenoo xaggay diintee walaala ka ahaayeen innama almu'minuuna wax dad muslima oo iimaan le labadooda adduunyada ku noolaa baa la yidhi saddexdaa been buu nebi ibraahim uu leeyahay banka qiyaame in laygu qabtaan ka baqayaa meeqa beena innaka jeebadaha inooga buuxda maanta beentii baa iska noqotayba wax iska caadiyadee oday baa inankiisa ku yidhi waryaa aabba beenta iska daa buu ka yidhi beenta iska dhaaf been baa lagugu sheegaya adigee beenalow ha noqon markaa buuhi waa yahay aabba haya ku noqon maayo waa seexanayaa buuhi odaygu uu yar jeefsado yarkiisiibaa u yimid oo yidhi aabba odaygii hebel hebel ahaa ayaa iridda kuu taaganoo ku doonaya markaa buuhi uu jiifaa ka dhab yidhi kii yaraa baa yidhi baleeg aabbahay beentana daa buu leeyahay asagina waa barayaa buu yidhi isagaa macallina buu yidhi yaa macallina aabbihii dhannaabaa macallina mid kale inankiisa ku yidhi waryaa sigaar baad cabtaa baa lidho la dhuudhuumataay maxaa ka jira aabba ciyaalka saaxiibaday kuwa sigaarka cabaan la socdaayo laakiin anu sigaarka ma cabo waa hagaaga wuxuu ku yidhi sigaarka ha cabbin buu ka yidhi haya aabbo intuu lacagta soo saaruu ka yidhi waa kana sigaarka ii soo iibi buu ka yidhi anigana beenta innakaa maanta mujtamaceenna barayna ibraahim calayhi salaam uu leeyahay saddexdaa beenood ayaan adduunyada ku soo sheegay intaan joogay in laygu qabtaan ka baqayaa buu yidhi ibraahim alkhaliil marka shafaacaddan anigu ma lihiye idhabuu ilaa hayrii muusa loo iman calayhi salaam nebi muusena wuxuu leeyay anu naf bini aadana ayaan gooyey oo halkii naftii maalinta aan dilay feedhka ku dilay inaan laygu qabtaan ka baqayaa maante idhabuu ilaa hayrii fayaatuuna ilaa ciisa bna maryam nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ba u iman doonaan nebi ciise markii loo yimaado isagu wax cudurdaara sheegan maayo laakiin waxuu leeyahy anigu shafaacaddan ma lihi fayadhabuuna ilaa muxamadin calayhi salaatu wasalaam nebigeennii udgoonaa calayhi salaatu wasalaam baa loo imani doonaa oo la odhan doonaa yaa muxamed adiga ayaa nebiyada ugu dambeeyey ilaahay dembigaagii hore iyo dembigii dambeba ilaahay waa kaa dhaafay oo ilaahay jalla wacalaa macsuum buu kaa dhigay imaamulambiyaa baa nebigeenna ilaahay ka dhigay khaatamu nebiyiin baa ilaahay jalla wacalaa uu ka dhigay markaasay leeyihiin noo shafaacad qaad oo ilaahay nooga ergee markaa buu nebigu leeyahay waxaan odhan doonaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadda maanta laga aqbalaya waa aniga idaa samictum almu'adina
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة مرك آذانك آد مغليسان أي النبي قول عليه الصلاة والسلام مؤذنك إرياد أوليه كدب هذا آذانك مركو دمادنا أنا يقص لي أبو النبي قول وسيلنا إلهي إي ويدية وسيلة إلهي إي ويدية وسيلة وحويان ومنزلة جنة كتالة ومنزلة الضون أوغلو جنة أوغو درجة الرئيسة الضون الضومها إلهي كمدة بقلي دونا الضون كاسنا وحان كل رجقبا إنه نقون دونا أنا قبو رسولك يدي نقا وسيلة إلهي إي ويدية بالك قيامها شفاعة إذا أحلال وذيب رسولك يدي فأقول أنا لها كدعاء سل أقبل إهمانته أنك وأن دقاقب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرش ربي حق عرش كانوا دقاقي فأقع ساجدا لربي ربي قيبا سجود أبدع دونا وحي إلهي إيفر دونا بود أمان الله أمانتي وأن هري أدونك دوشيد أن لو أمان وأنيقنا أن هري إيسومر أيام مالنتا إلهي إيفر دونا بين مركابا إلهي أماني دونا مركابا الأرد دونا يا محمد ارفع رأسك مدح كروقات سل تعطه شيغا واحد دونيسو waxaad sheegata ilaahay waa ku siinaya ishfac tushaffac ergad dalab baa la odhanaya ergadaada adiga waa la aqbalayaa ee shafaacad qaad markaasaan odhan doonaa rabbi ummatii muxuu odhan doonaa rabbi ummatii ma odhanayo inantaydii faatima ma odhanayo maaragtaane zawjadaydii caaisha dadka xaasaskiisa ta ugu jeclaa waa caaisha radiallahu canha dadka kalena ta ugu jeclaa waa faatima radiallahu canha safar haddii uu ka yimaado masaajidka intuu 2 rakaca ku tukado inta xaasaskiisa uusan tagin nebigu inantiisa faatimu ka bilaabi jiray ziyaarada markaa bay dhunkani jirtay camar binu caas allah raalli ka noqdee baa saxaabada ku yidhi nebi maxamed asxaabta anuu iigu jecel yahay markaasaa lagu yidhi arbilo lagaa jeclaa cid kale may laygama jeclo nebigu anuu dad iigu jecel yahay markaa buu waan weydiinayaa nebiga u kaadiya markaa yaa rasuul allah dadka ayaad ugu jeceshahay markaa buu nebigu yidhi caaisha dadka ugu jeclahay buu yidhi xaaskiisii inaku ninku naagtiisa xaaskiisa inuu yidhahdo iyadaan dadka ugu jecelahay uu ka xishoonaya sooma waa la odhanaya islaantiisa uu jecel yahay cayb ma aha dacaayad ma aha waa curfi waa cishradii nebigeena calayhi salaatu wasalaam wareerihiisa kula dhaqmaayey dadka ayaad ugu jeceshahay caaisha yaa rasuul allah maaha xagga haweenka xagga ragga miyaad ii weydiisay haa abubakar aabaheed haddana cumar waan iska aamusay buudi waxaan ka baqay buudi haddaan sii wadi lahaa inuu nebigu iga dhigi lahaa qofka ugu dambeeya saxaabadiisa uu jecel yahay marka nebi maxamed tuu dadka xaasaskiisa ugu jeclaana waa caaisha ehelkiisa ciddii ugu jeclaana waa faatima banka qiyaama marka la soo saaro odhan maayo yaa rabbi xasan iyo xusein baan ku weydiinayaa ergo odhan maayo wuxuu leeyahay yaa rabbi ummatii yaa rabbi ummadaydi ummaddiisu waa innaka ummaddiisu waa asxaabtiisii ummaddiisu waa cid alliyo ciddii muslim ee shahaadanaysa qabuuraha baqiic ayuu nebigu maalin ziyaartay markaasuu u duceeyey daadna markaabuu raggii la socday buu nebigu soo daymado wuxuu yidhi wadidtu low annii laqiitu ikhwaanii waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay la kulmi lahaa markaabay saxaabadu yidhaahdeen nebi allow annaku walaalaha ma nihin miyaa markaabuu nebigu yidhi maya inninku asxaabtay baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ayakuna imay arkin oo imay soo gaadhin aniguna ma arag buu rasuulku odhan doonaa waa kuwa gadaal may iman weli adduunka laakiin way iman doonaan buu nebigu yidhi markaabay saxaabadu yidhahdeen oo adiguna maad soo gaadhin oo maad arkin ayakuna kumay arkin qiyaamaha seed u garan doontaa noo sheeg waxau nebigu yidhi halkii ay weysada marin jireen oo iftiimayso cadcad ayay banka qiyaama iman doonaan deedna markaasaan ku garan doonaa buu yidhi calaamadii weyse qabka qofkaan weysaysanaya ka warramaysa qofka kubkiisa weli biyo aanan marin ee ilaahay aan u sujuudin ee maskiid aan soo gelin maxaa lagu garan isagana dadka salaadaha 5 waqti ilaalinaya banka qiyaamaha lagu garan doona ayaka midkiin hadduu leeyahay buu nebigu yidhi fardo
qoobabka cadcad oo wajigana ka cad haddii lagaga dhex daro farda madow oo wada cascas fardihiisa miyuuna ka dhex soocanayn saxaabadu haa uu ka dhex garan doonaa markaa buu nebigu yidhi ummadaydu banka qiyaama waxaan ku garan doonaa halkay weysada marinayeen oo iftiimaysa iyo iman doonaan buu rasuulku yidhi kuwii tawxiidka iimaanka qalbigooga ku haystay ee islaamnimada qalbiga ay kaga jirtay ayakoo dunuub samaynayana adduunyada ka baxay ayakana nebigu ka hadhi maayo jahannama lagu guri ilaahay jalla wacalaa markuu naartaa jahannama uu kaga aargoosto ayaa kuwa gaalada odhan doonaan diintii islaamkeed u nisbad sheeganayseen hamee waxbay inii qabatay sawnaka meel keliya ku wada jirnama hal mar keliya ayay odhan doonaan waa muxammadaa waa muxammadaa waa muxammadaa markaa buu nebigu odhan doonaa yaa rabbi kuwaa jahannamo ka dhex dhawaaqaya magacayga qabsadayna waa ummadaydiiyo waa cusaaddii ummaddaydee cadaabkaa intaad cadaabtay ayaad kaga aargoosatay ilaahayow ilaahow shafaacaddeeda ayakana gaarsiiyo naarta jahannama uu ka soo saar buu odhan doonaa kuwii naarta ku dhacay markaasay ka soo bixi doonaan buu nebigu yidhi iyakoo noqday dhuxul oo kale dhuxul madow albaabka jannada tog mara oo la yidhaha magaciisa nahrulxayaat ayaa lagu tuuri doonaa buu rasuulku yidhi deedna markaasay soo biqlayaan sida geedka u soo baxo ayaa jidhkoogiibaa soo bixi doonaa deedna marka jidhkoogu sidoodii uu ku soo noqdo ayaa halkaa waxaa kaga qornaan doonta aljahannamiyuun kharajuu min annaari bishafaacati muxamed kuwaas waa kuwii jahannamo la geliyey ee shafaacaddii nebi maxamed kaga soo baxay jahannama markaabaa jannada la gelin doonaa iyakana cusaaddii ummaddiisa nebigu kama hadhin muslimkii caasiga ahaa ee isagoo maaragtaane dunuub wata oo dunuub badan wata adduunyada ka tegay naarta la geliyey ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaacad qaadi doonaa oo shafaacadda nebigu kaga soo bixi doonaa naarta jahannama haddana dad kale ayaa naarta ku dhex jira welibana kuwaasna waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allahdii adduunyadaad ku lahaydeen hamay waxbay nii qabatay odhan doonaan sawnaka meel keliya ku wada jirnama inninkoo laa ilaaha ila allah leh deedna markaasaa ilaahay odhan doona akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah